kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Faafi TV waa 14 bisha 9 sanada 2020 kusoo dhawaada warka habeenay Faafi TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamida shirka u dhaxeeya madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada oo galay maalintii labaad iyadoona filla Soomaaliya ay jiraan qodobo ay isku mari laayihiin maamul goboleedyada dalka maxkamadda ciidamada qalabka sida uu fariistay dhageysiga eedeysana loo haystay inuu ka tirsan yahay al-shabaab askar ka tirsan ciidanka Itoobiya oo isku dilay qaybo kamid ah gobolka Gado akhbaraadka caalamka aad ku daawan doontaan warkeenana waxa kamida midowga ururka islaamka oo si adag kaga hor yimid heshiiskii Bahrayn ee la gashay Israa'iil daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweyn warkeena imikayaatan u diyaar garooba daawashada iyagii oo inta ka faahfaahsan shirka madaxda dawlad goboleedyada dalka iyo madaxweynaha ayaa galay maalintiisii labaad iyadoo ay jiraan qodobo dhowr ah oo la isku mari laayahay shirka wada tashiga madaxda dawladda dhexe iyo sidoo kale dawlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir ayaa galay maalintiisii labaad waxaana shirkaas ku sugan dhammaan madaxda dawlad goboleedyada iyadoo madaxweynaha dawladda Soomaaliya uu shirkaas daafuray madaxda dawlad goboleedyada dalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir madaxda dawlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ku sugan goobta uu shirku ka dhacaya shirkaan oo ah mid xasaasi ah ayaa waxa diiradda lagu saaraya xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee 2020 ilaa 2021 ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay sheegayaan in si rasmi ah loo guda galay ajandayaasha shirka maadaama kulankii hore uu ahaa mid hordhac u ahaa iyo sidoo kale furitaanka shirka inta badan waxaa laga doodayaa heshiiskii lagu gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug kaas oo aysan qayb ka ahayn madaxda Jubbaland iyo Puntland oo xilliga ka maqnaa sidoo kale Axmed Madoobe iyo Siciidane ayaa miiska soo saaray qodobada qaar oo ay diidan yihiin kuwaas oo ay doonayaan in mar kale dib loogu laabto sidoo kale waxaa dhacay kulamo gaar ah oo lagu gorfeenayay sida looga gudbi karo caqabadaha taagan si xal midaysan looga gaaro doorashada dalka ee soo socota xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa haatan ah mid cakiran waxaana isha lagu wada hayaa natiijada ka soo baxday shirka wada tashiga ee magaalada Muqdisho uga socdo madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada dalka kuwaas oo muddaba ku sugnaa Muqdisho una joogay inay ka qayb galaan shirka dawladda Soomaaliya ay la yeelanayaan gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wararka qaar ee aanu helayno madaxtooyada dawladda Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in qodobada qaar ay soo bandhigeen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay yihiin kuwa la isku mari laayahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu doonayaa inuu xaliyo dhammaan tabashooyinka ay qabaan madaxda dawlad goboleedyada dalka oo ay ugu horeeyaan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland kuwaas oo ka maqnaa Dhuusamareeb 3 go'aanadii ka soo baxay iyo heshiiskii lagu gaarayba waxaase xusid mudan in qodobada qaar ee Axmed Madoobe iyo Siciidane ay miiska soo saarayaan inay yihiin kuwa madaxweynaha dawladda Soomaaliya aanan u cuntamaynin iyadoo ay adag tahay sida laga gudbo qodobadaas oo lagu xaliyo madaxweyne Farmaajo ayaase waxa uu doonayaa in shirkii Dhuusamareeb wixii ka soo baxay la sii ambaqaado askari Itoobiyaan ah ayaa isku dishay gobolka Gado iyadoona sababta ka dambeysay ay tahay haweeney ay saaxiib la ahaayeen wararkaanu ka helayna degmada Luuq ee gobolka Gado ayaa waxay sheegayaan in halkaasi ay isku dileen laba askari oo ka tirsan ciidanka Itoobiya ee qaybta ka howlgalka AMISOM dilka askartan Itoobiyaanka ayaa yimid kadib markii uu muran gacan ka hadal ah uu soo kala dhex galay labada askari iyaga oo markii dambe qoryo isku soo qaatay sidaasina isku toogtay dad ku sugan Luuq ayaa soo sheegaya in askartaan murankoodu uu ka dhashay weynay saaxiib la ahayd labada askari ee Itoobiyaanka ahaa waxaana goobta falka uu ka dhacay laga soo qaaday meydka askarta Itoobiyaanka oo daqiiqada yaalay degmooyin ka tirsan gobolka Gado ayaa waxa ku sugan ciidamo Itoobiyaan ah oo ka qayb ah howlgalka AMISOM iyagoo ciidanka Itoobiya ay qayb ka qaataan howlgallada ciidanka dawladda iyo dagaalada ay kula jiraan al-shabaab maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa la hor keenay eedeysana lagu eedeeyay inuu ka tirsan yahay al-shabaab maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay bilowday dhageysiga kiiska nin lagu eedeeyay inuu la shaqeynaya al-shabaab uuna ka howlgalayay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado Farxaan Maxamuud Xasan oo ah ninka lagu eedeeyay inuu la shaqeynaya al-shabaab ayaa kol hore isku soo dhiibay ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan degmada Balad Xaawo isagoo xilligaas sheegay inuu ka soo goostay al-shabaab uuna ka mid ahaa kolkii hore ciidanka haramcad ee dawladda Soomaaliya ee geysay Balad Xaawo ayaa la sheegay in ay soo ogaadeen fariimo uu eedeysana Farxaan Maxamuud la wadaagay al-shabaab kuwaas oo ku aadanaa habka ay u shaqeeyaan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ee ka howlgala degmada Balad Xaawo xeerlaaliyaha guud ee ciidamada Cabdullaahi Buule Kamiya ayaa maxkamadda ka hor sheegay in eedeysana Farxaan Maxamuud uu ka tirsanaa al-shabaab isagoo ku tilmaamay inuu ahaa nin la wajiilo ah wuxuuna maxkamadda ka dalbaday in cadaaladda la marsiiyo eedeysanaha ugu dambeyntii gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanle Xasan Cali Nuur Shuute oo ku sugan degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado ayaa sheegay in maxkamadda ay go'aan ka soo saari doonto kiiska loo haysto Farxaan Maxamuud oo horay isugu soo dhiibay ciidanka dawladda Soomaaliya balse lagu eedeeyay in uu la shaqeynayay al-shabaab uuna ka mid ahaa xilligan maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sidaan oo kale dhowr jeer waxay xukunno kala duwan ku riday eedeysanayaal loo haysto kiisas kala duwan oo la xiriira inay ka tirsanaayeen ama ay ku lug lahaayeen al-shabaab waxaana maxkamadda dhowr jeer oo hore u digtay dadka la shaqeeya al-shabaab ee ka howlgala deegaanada ay ku sugan yihiin ciidanka dawladda Soomaaliya daawadayaal wali waxaad daawanaysaan oo la socotaan warka Faafi TV markaana akhbaraadka caalamka
midowga culimmada islaamka ayaa war ka soo saaray heshiiskii Bahrayn iyo Israa'iil. midowga culimmada islaamka ayaa waxay si rasmi u muujiyeen dareenkooda ku aadan heshiiskii dowladda Bahrayn ay ku dhawaaqday inay la gashay dowladda Israa'iil kadib markii heshiiskaas uu shaaca ka qaaday madaxweynaha waddanka Mareykanka Trump. midowga caalamiga ee culimmada ayaa heshiiskaas Bahrayn ay la gashay Israa'iil waxay ku tilmaameen in uu yahay khiyaano qaran oo laga gelayo shacabka Falastiin iyo guud ahaanba ummadda islaamka. xogayaha guud ee midowga culimmada islaamka ayaa waxa uu sheegay in kulamadii ugu dambeeyay ee midowga uu yeeshay ee ka soo baxay bayaan ay kaga hadlayaan heshiiska iyo sida ay u arkaan. sidoo kale xogaya Cali ayaa waxa uu ku tilmaamay in heshiiskaas uu yahay mid lagu degdegay maadaama Israa'iil ay weli ku adkaysanayso inay sii haysato dhulka ummadda islaamka gaar ahaan ummadda Falastiin. waa wadankii afraad oo dal Carbeed ah isla markaana xiriir diblomaasiyadeed oo toos ah la yeeshay Israa'iil. waxaana heshiisyo hore Israa'iil la gaaray dowladaha kale ah Masar, Urdun iyo Imaaraadka. waxaana ugu dambeysay dowladda Bahrayn oo kol dhow shaaca ka qaaday in heshiis ay la gashay. daawadayaal intaasi waxaa ku dhan warkii oo aad ka daawanayseen Faafi TV. waad ku mahadsantihiin la socodka iyo la saanqaadka warkeena.